waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka inoogu tilmaamaya dhalinyaro waxtara oo dulmi ka hortimi oo wax kasta oo xumaa diiday oo geeri iyo wax walba aqbalay ilaahay wuxuu tilmaamaya maalan quraanka khaalidka lagaga waramaya kuwa maxay asxaab al-kahf ilaahay muxuu ku sheegay innahum fitya aamanu bi rabbihim wazidnahum huda dhalinyaro yahaayeen baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala ilaahay rumeeyay annanaanu hanuun kordhinay nabi ibraahim dhalinyaruha markuu wax jajabinaya islaamtii waxaan diidayay qaaluu man facala hada biaalihatina innahu la min adh-dhalimin qaaluu samicna fatan yadhkuruhum yuqaalu lahu ibraahim waxaanu maqalnay nin dhalinyaro ah oo hadal hayay islaamtan burburintoodiiya waxa kan waxay ahaayeen dhalinyaro kuwii taariikhda dhigay nabi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markii alla soo diray dhalinyaronimada halkii u dambaysuu joogay 40 jir waxay culamada qaar yidhahdeen waa muntahaheeda laakiin taariikhdan adduun raggii qoray ee mujtamacaadkan duniyeed bedelay saxaabada maxaa u malaynaysaa markaad saxaabo maqasho inta badan waxa laga yaabaa caqligaaga inay kusoo degdegto rag waaweyn oo odayaal ahaa oo qaada ahaa oo ummad hogaaminaya oo ka rag waaweyn bay ahaayeen oo dad hogaaminayay laakiin dhalinyaro ay ahaayeen marka da lagu xisaabtamo abi bakr baa weynaa kooxdii hore islaamtay islaamku ku tirsanaa 37 jir buu ku islaamay عمر بن الخطاب أصحاب التاريخ waxay yiraahdaan 26 jir buu ahaa Uthman waxa lagu tilmaamay inuu 20 jir ahaa Bilal yaba ugu weynaa baa la yiraahdaa Abdurrahman ibn Auf iyo 30 jir ay ahaayeen Bilal iyo Abdurrahman ibn Auf 30 jir ay ahaayeen Ali 12 jir buu ahaa saawada taqaaniin Sa'd ibn Abi Waqqas 17 jir buu ahaa Suhayb ar-Rumi 19 jir buu ahaa Zayd ibn Haritha 20 jir buu ahaa أبو عبيدة بن الجراح دوري اللواتن تضبية اللواتن جربوها ملا صلوا تلماما رجع برد بالجارسين كوبية من جراها يمبا قريه هذا الوشري الأرقم ابن أبي الأرقم علماء التاريخ أرقم يدو حيلين كوبية من جربوها برجع قريه سلوشري شري إنك استو رواية كوساء رورين أيوه إمام الذهبي وقت الماما ينو سقالية من جرم لها هدا كل الدو ينوها على كل حال تاريخ ذا الإسلامي قال رجي قري دين تنوه الجمي نولش وحكة جدية إسلام لماذا كوهجي وحيا هاي دلنيرو لكن وحيا هاي دلنيرة قرنا يوحي النولين وحيا هاي دلنيرة ربا إن عمره قد كفايديان وحيا دلنيرة هدف له والربا إن حقيقية ما يهين دلنيرة النول inay cunaan oo seexdaan oo yiraahdo xalayna kubad fiican baa socotay xalayo team hebel ka badinayay saako dhan uu soo hurday markuu soo toosayna quraaciyo ayaa hooyadiisu saartay iyo surwaalka kaaweeysan intii soo xidhay abaar buu suuqa soo marmaro markuu soo sheekeeyna uu soo noqdo qadu cunay hadhowna dib uu seexday hadaanu balaba qabin aanu qaad doonanin markuu soo noqdana noloshiisa oo dhammaysii socay soo socay in cunaabay ku dhamaatay laakiin kuwani waxay ahaayeen dhowr iyo 10 jiro rumaysan inay dunida bedelaan dhowr iyo 10 jir hamiga ah rumaysan inuu diin xambaaro dhowr iyo 10 jir inuu dunida xaga kale u dhigo madiino oo dhan yaa furtay Mus'ab ibn Umayr iyo Abdullah ibn Maktum buu nabigu soo diray Mus'ab ibn Umayr inay yar buu ahaa inay yar oo markuu maka joogay xaraga badnaa oo aad u xaraga badnaa baa la yiraahdaa cudurtu ismarin jiray iyo dharku xidhan jiray laakiin markuu islaamay ilaabay waxa soo dhan ku tala galay inuu nolosha wax ka gadiyo isagoo dhalinyaro abu nabigu u diray inuu Madiina qabto Madiina Mus'ab ibn Umayr baa islaamiyo bedelay ragga taariikhda ku taqaanay Aws iyo Khazraj hogaaminayay Sa'd ibn Ubada Sa'd ibn Mu'ad waxay ku soo islaameen gacantii maxay Mus'ab ibn Umayr آخر ميزان كمصعب يجوا كشروا إيمانيا كون نبي لها صلوات الله وسلامه عليه اهتز عرش الرحمن إلهي عرشه سأجريري جريدي أيه سعد بن معاذ كوا جريدو ده عرش الرحمن ولا جريري ده اللي يرى دين تبقى صادرتي آخر سعد يا معاذ يا كوح ده صادمي يجوا ميزان كعمار كشروا بإيمانيا مصعب بن عمير iyo ku jira miisaankiisa ayay imanayaan
يعني مكة إسلام كوكفة في الرقة في سوق قال لي الدين تسوق علي مصعب بن عمير بافرتي مصعب كاس أيها نكي أحد راية دي مسلمين تسيدق عنت مركي لقوي تكلك وسيدق عما مركي لا ترى علماء التاريخ إذا دان عجوه كوهي إلى ملو البلد كويني مصعب كاسوها كي مركو الدنيا كبحيي مركو شهادة قاتل جريودي ninkii xaragada badnaa mara lagu kanfal looma helin tuusitay ba shahiid buu ahayo lagu aasay laakiin waqo Abdurrahman ibn Auf tilmaamay waa dambe ayaa Abdurrahman cunna loo soo dhigay laba isugu jirta laba shay inaga qadada imisa la inoo dhigaa 10 shay oo kala nooc ah salad iyo sharaab iyo hilib iyo khudaar iyo bariis iyo waxa soo dhan Abdurrahman ibn Auf laba xabba loo dhigo kala nooc ah markaasuu ooyay baa la yiraahdaa markaasuu wuxuu yiri tayibaadkaygi baa anaga dunida loogu soo horumariyay waa laba raashin oo yar oo kala nooc ah ay wuxuu leeyahay waxaan ka baqayaa inaan noqono kuwii dunida loogu horumariyay maxay wanaagoodiiba waxa naga mid ah buu leeyahay markaa mid aan wixii shaqaystay waxba ka cunina ilaahay dib ugu dhigay Mus'ab ibn Umayr buu markaa ka waramay go'ay la saaray wuxuu leeyahay hadii madaxa laga saarana cagaha qaawismayay hadii cagaha laga saarana madaxa qaawismayay deetan nabigu wuxuu yiri madaxa ka saara salawaatullaahi wa salaamu alayhi inta dambe cagaayona idkhiru sarsara idkhir kuwa iska geed yaro cawskaas oo kala kaaw saara cagaada mana ku qariya laakiin noloshu hadaf kala hadafkiisina uu xaqiijiyo uu dhintay